adiga waxa arkaysaa nin dhan oo madaxweyne oo muslim oo gabadhiisa ka dhiganaya shaqaale Soomaaliya amba secretary ba ka dhiganaya amba iska wato kala gabdhaha kale la mid tahay soo ma jiraan iyo namada kale la mid tahay waxa ilmaha waxa diinta ka hormaraysa waxa ku hormaraysa dimuqraadiyadda ka hormaraysa cadaaladda ka hormaraysa Abi Bakr waxyaabaha uu la kulmay muddadii uu maamulka hayay waxa kamid ah dadkii ka baxay diinta ama sakada bixin waayay Rida Wars ama apostasy waxyaabaha lagu gaaray ijmaaca oo culimadu markaa ay yani shideeyeen Umar waxa kamid ah cashuurtii dhulka Iraq iyo Egypt يعني الدستور كانت صالحانه كلا صومالي waxa ku yaala muqdisho ay tahay caasimada Soomaaliya Soomaa caasimada naas ay waafaqsan daliil u kan ma jirto naas ay waafaqsan ma jirto laakiin ma khilaafsan tahay kitaabka Quraanka muhiimad marka waxa weey dasaatiirta waxa la qoray xeerarkaasi waa in aan khilaafin diinta islaamka badana inagu watar markii ruux Soomaaligu markuu maqlo dastuur wuxuu iska soo jaray maxaan dastuur ku falaynaa shara kitaab iyo xadiiskii waa noo yaale marka in la dhahaan bal niqaashno waa dhag xasaasiyadna waynu ka qabnaa dimuqraadiyad haddeen maqalnaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيارتا علماء دكاترة كسود هذا برنامج كنا بالله من كورس نادي من كورس ونادي آخرسة لوكو بعيو مانكا فكرك هي أخلاق بالشدة عاوي وحن ميسك نوصارن كتاب لكم عاوي افتيمين كسابسن تصورك هي الشريعة دكتور خضر وكمل أساسياشا من كورس ونو طوري بيجك دمبنا وكورين هي ستيتمنتيجا دكتور خضر دستورك وحلو رادينا معنا waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Dr. Kate buuga noogu soo koobo kadibna waxaan geli doonaa niqaashka buuga ku saabsan bismillah alxamdulillahi rabbil caalamiin saaxiibayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan si gaar ah u salaamayaa wiilka abtiga wahay bidixdeeda fadhiya inta kalena adeer baan idinahay marka abtiyaal adeerayaal soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay caawa in halkan ku kulanno inagoo iskugu nimi arrimihii la isugu iman jiray kuwa u quruxda badan caawa waxaad moodaa waqtiguna inuu gaaban yahay waxaan ku dadaali markaa inaan bal soo koobo oo naxwa waxaan jeclahay caawa inuu ka hadalno buug ama kitaab la yidhaahdo iftiimin ku saabsan dastuurka iyo shareecada buugga ama kitaabkaas oo qoray Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil waxa qoray nin aqoonyahana khabiira aad u yaqaan mawduuca uu ka qoray oo ku laba siyood u eegay inuu isagu isla dooday dhexdiisa oo meel walba daliil raadsaday iyo inaad moodo inuu la doodayo qancinayay culimo waaweyn oo markaa meel walba u lahaa muuji oo bayaami aad iyo aad ayuu u dadaalay taxadir badanna wuu sameeyey inuu iska ilaaliyo inaanu meel dhinac u leexanin sidii saxda ahayd ee uu karayay ayuu aad iyo aad ugu dadaalay muddo yar oo gaabanna uu ku qoray way adag tahay qof bani aadamihii inuu kitaab yani intaa leeg oo mawduucyada intaa laale ka hadlaya in muddo yar oo gaaban lagu soo qoro taasi waxay yara keentay meelo yaryar isbeelingii xulashadii kelmadihii kala horraysiintii ereyada jabtarada inuu xoogay magaranaysaa ay su'aala ka iman karaan soo waxaan rajaynayaa inuu mar labaad ku noqon doono oo howlaha kala habayn doono insha allah sideedaba marka arrimaha noocan oo kale laga hadlayo bilowga hore waxa qurux badan shayga cad in laga hadlo dabeetana shayga aan caddayn kaasaa caddaynaya soo waxaan jeclaan lahaa inuu marka hore topigu noqdo iftiimin shareecada iyo dastuurka markaad shareecada fahamto waxaa kuu caddaanaya dastuurka soo kaskala inay isqaadan karaan inuu la jaan qaadi karo inuu sax yahay soo waxaan uga hadlay anigu iftiiminta shareecada
iyo dastuurka saasay ku yar qurux badanta haddii aan ku bilaabo markaa innaga kaftan waxaa la idhaahdaa qur-aanku wuxuu ku soo degay baa idhahdaa sacuudiga ayuu ku soo degay okay wuxuu ku soo degay jasiiradda carabta waxaa la idhahdaa kutiba مصر حفظ في الصومال حافظين ugu badan baan leenahay waxaan rajaynayaa marka xaafidiinta faraha badan la ee jira oo fahamsan inay arrimo badan oo kitaabka ku jira inay bayaamin doonaan insha Allah sheekh abtigaan oo haya niman badan oo halkan jooga arrimaha qayb ka qaatayna waxaan rajaynayaa marka in arrimahan ay noqon doonaan unugii ugu horeeyay dabeetana u kori doono waxaynu ognahay ilaahay inuu yahay sharci dejiye inay diinta islaamka ka horeeyay soo degeen dadku laba uun inay ahaayeen in rumaysatay ama rumaysan iyo inaan rumaysnay diintii islaamku waa diintii ugu dambeysay waa nebigii ugu dambeeyey waa diin jiri doonta ilaa qiyaamuhu dhacayo taasi waa waadix oo waxinoo cad wey waxay u soo degtay nidaam in waxyi ilaahiya loo soo dhiibo malku jibriil nebiga loo keeno asxaabta u gudbiyo asxaabta kale asxaab yani laysku sii dhiidhiibay ilaa imika inaguna aan sii gudbin doono oo taxan diinta islaamku waa diin aan meel gooni ku soo degin waa diin ballaadhan oo adduunyada oo dhan oo caalamiya waa diin aan cid gaara ku soo degin waa diin waajibaad siisay qof kasta si siman waynu ka dharagsannahay aad iyo aad baynu naqaanaa u fahamsannahay waa diin nolosha qurxinaysa habeenaysa qofka ka dhigaysa qof sharaf leh wanaag leh ixtiraam leh ujeedooyinkiisu cad yihiin loo abuuray uu nool yahay wax loo ogol yahay waxaan loo ogolayn arrinkiisu iftiinsan yahay oo cad yahay arrin ka yimi ilaahay haddaan qur-aanka dib ugu noqonno suuratulxadiid aayadda 3 huwa alawal walaakhiru waldaahiru walbaadin wa huwa bikulli shayin caliim ilaahay waa asal waa jiritaanka waa asalka jiritaanka oo ku xeeran waxay muuqda iyo wixii qarsoonba oo marka cilmi oo dhan uu u dhan yahay ama ku dhan yahay ama u dhammaystiran yahay ama ku dhan yahay oo wixii hore waxa imika waxa soo socda kulli ogaal badan markii waqtigii nebigu soo dhammaanayay oo xajul wadaaci u dambeeyey oo ay soo degtay aayaddii ugu dambeysay ama aayadii ugu dambeeyey markaan odhan karno ilaahay wuxuu inoo dooray inaynu diintaas aynu islaam nahay oo inoo dooray diinta oo markaa nimco alla inagu manaystay oo inoo dhammaystiray oo kaamila oo wax ka maqan diinteenni aanu jirin nebigu wuxuu ka bilaabay sal allahu calayh wasalam maka waxaa ku soo degay waxyi waxa culayska ugu weyn la saarayay markaa tawxiidka dulqaadka cadaaladda iyo waajibaadka shakhsiga ama dadka madiina markii nebigu u gudbay waxyigii oo socday oo qur-aankii sunnihii waxaa ku soo biiray markaa shura oo ah consultation nebigu inuu asxaabtii la sameeyo wada tashi marar ay ku habboonaatay wada tashiyadaa waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan dagaalkii beder dagaalkii uxud dhufays qodidii muxuu ahaa khandaq iyo heshiisyadii xudaybiya waxaa ka mid a kuwaasaa ka mid a tusaale ahaan yani aan soo qaadan karno waqtiyadii madiina kabacdii waxaa ku xigay markaa
markii nebigu tawafay waxaa ku xigay khulafaa uraashidiin oo markaa abubakar cumar cusmaan iyo cali bin abi daalib oo iskaga dambeeyey oo la odhan jiray khulafaa uraashidiin markii uu nebigu tawafay ama dhintay asxaabtii waxay doorteen abubakar alsadiiq abubakar asadiiq wuxuu noqday markaa madaxweynihii ama hogaankii islaamka dabeetana dadkii wuxuu u jeediyey hadal xasuus reebay oo ah hadalkii xaq ahaa oo markaa aynu ka dhaxalnay oo aynu mudan inaynu inoo yahay tusaale oo aynu ku dayno dad yahow madax baa la iiga kiindhigay idinkuma khayr badni haddaan hagaajiyo ikaalmeeya haddaan waxumeeyo itoosiya runtu waa ammaano beentuna waa khayaamo kiina taag darani agtayda uu xoog badan yahay ilaa aan xaq u qaado kiina xoog weyn agtayda uu taag daran yahay ilaa aan xaq ka soo qaado haddii alla idhaa adeeca inta aan ilaahay iyo rasuulka adeecayo haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa adeeci waayo adeecitaan idinkuma lihi abibakar markaa hadallada markuu ka hadlay micnii abibakar in la doortay shacabku doortay isagu aanu isdooran waa arrin inoo cad micnihii shacabkaa doortay shacabkuna leeyahay xaqa doorashada markaan ka eegno xagga shareecadeenna waa markii ugu horeysay waa jid inoo furmay markaa in bulshadu ku leedahay madaxda ilaalin hadday toosan yihiin in loo kaalmeeyo ama in loo kaalmeeyo hadday qaldamaanna inay mudan yihiin in la toosiyo xaqa madaxdu ku leeyihiin shacabka oo ah inay adeecaan wixii shareecadda waafaqsan wanaagna ugu kaalmeeyaan in bulshadu ku leedahay madaxda sugid cadaalad oo ah cadaalad samayn mas-uuliyadda dowladnimo inay tahay mas-uuliyad wadareed which is mas-uuliyad guud maamulku ku dhisan yahay cadaalad in loo xaq sooro ka xooga badan iyo ka taagta daran madaxdu lahayn amar ku taaglayn oo waxa xukuma iyaga iyo shacabka uu yahay sharciga ilaahay ayna waajib tahay inay loo wada hoggaansamo haddii madaxdu ilaahay caasiyaanna aan la raacin waxaan taa odhan lahaa oo kaloo kusoo gogoyn lahaa halkaa arrinkaa abubakar in shacabku doonistooda aan lagu shaqaynin oo lagu shaqeeyo shareecadda ilaahay u soo dejiyey oo bulshada madax iyo shacab u dhexeeyo micnihii inaan hawooyinka ama waxyaabaha ay doonayaan aan diinta loo raacin oo aayad qur-aana kale khadar baa inoo sheegi doonee laa tatabic ahwaa'ahu wixii ilaahay soo dejiyey in lagu maamulo laakiin aan loo raacin waxyaaba iyagu ay ku fekerayaan ama ay doonayaan ama ay jecel yihiin haddaba khulafaa u raashidiintii aynu ka hadalnay inuu waa 4 waxaa la kulmay arrimo badan arrimihii badnaana waxay ka gaadheen xalal waqtigii nebiga kitaabkii ilaahay sunnihii iyo shuura ayuu ahaa qaabka ama nidaamka go'aanku 3 arrimood waqtigii ay yimaadeen khulafaa u raashidiintuna waxaa ku soo biiray ijmaac iyo qiyaas marka ijmaacu wixii ugub ahaa ee cusub ee yimi
in culimmadu markaa ay iska arkaan oo ay ka soo saaraan markaa inay isku raacaan oo arrin leh daliil cad oo deetana shareecadii sidaa kaga mid noqda ijmaaci iyo qiyaaskii oo markaa noqday in farac arrin hore u soo dhacay oo jiray iyo arrin cusub oo xidhiidh ka dhexeeyo markaa in culimmadu u raadiyaan daliilkii dabeetana ay markaa yidhaahdaan arrinkaasi sidaas ayuu mudan yahay oo for example haddii kiniinada nimka la cunayo oo kaloo soo baxay oo dadku ku sakhraamayaan ama caqligooga bedelaya dee kula muskirin xaraam waa aayado hore oo jirayo in wixii caqliga bedelaya uu yahay xaaraan markaa daliilku waa cad yahay waa lagu lamaanaynayaa markaa waxaan rabaa inaan yaro dul maro waayo haddii kale waqtiga ay nagu badanaya abibakar waxyaabaha uu la kulmay muddadii uu maamulka hayay waxaa ka mid a dadkii ka baxay diinta ama sekada bixin waayey rida wars ama apostasy waxyaabaha lagu gaadhay ijmaaca oo culimmadu markaa ay yani shideeyeen cumar waxaa ka mid a cashuurtii dhulka ciraaq iyo egypt cusmaan bin cafaan standardization of qur-aanka halkan yaalla meel walba yaalla isku wada mid isku si u qoran inuu nidaamiyey hal qur'aan ali judicial fairness cadaaladda xagga muxuu ahaa sharciga inuu aada yani waqtiyo khilaafu jireen يعني كسي فقان مايو صدحدا هذا ميلود صدحدا ميلود أن صار شيء أو وقت جي مكة وقت جي مدينة يخلفاء الراشدين تي وحادو حوجيستي مقصد لنس أما مقصد الأمور وعشان شيء الدينتو إلا هذا مر والبا سيتشوكتا أيوة علينس هو الدين نفس عقلي النسب أما قيس مال وسيتشوكتا الله إلى علينا إن معني هالكا مركا إنه سوكوبنا إنتا مركا دين تصدح شيء waxay nooga dhigta bayaan waxyaabaha qaar diintu inay naga mamnuucday waxyaabaha qaar inoo ogolaatay waxyaabaha qaarna diintu ka aamustay wixii mamnuuci waa mamnuuc wixii la ogolyahay waa la ogolyahay arrimaha markaa laga diintu aanay waxba labadaas midna aan ahayn inay noqotay arrimo u baahan ijtihaad in la nimaado oo marka intaynu raadino aynu u dadaalno waa arrimaha hadda marka aan oran karno waxay u bannaan yihiin dastuurka waayo kani markuu yahay sharcigii ilaahay soo dejiyey intii marka aan islaamka rumaysnayni waxay noqdeen kuwo sharcigii ilaahay ka baydhay oo iyagu hawadooda iyo waxay aaminsan yihiin waxay doonayaan jideeyey dastuurka markaa ay sameeyeen ma la raaci karaa mise lama raaci karo ayaan isweydiin karnaa haddii aan soo qaadano dimuqraadiyadda waxaanu yidhi waxa weeye demos iyo kratic demos waa shacab kraticna waa xukunkii shacabka markaa shacabkii oo xukumaya ama isxukumaya oo nidaam samaystay social contract oo ku heshiiyey arrin ay heshiis ku yihiin iyo jid qaab loo raaca leh oo ay heshiis ku yihiin waayahay
bani aadamku sharci uu dejiyey dastuur lagu sameeyey ma qaadan karnaa innagu waa su'aal u baahan inaan isweydiinno innagu waxaanu idhi wax kasta oo diinta islaamka ka hor jeeda oo lid ku ah ma qaadan karno laynoomana ogola waayo diintii ayuu lidkiyuu ka soo hor jeedaa waaye haddaba dastuurka haddaynu eegno oo aan kan maray macnihii dastuur ay sameeyeen bani aadam oo meelaha qaar odhan karto waa meelo qurux badan waxaa ka mid a fatlaba aan qaadano dastuurka maraykanku markaanu soo koobno wuxuu ka kooban yahay muxuu ahaa aqalkii baarlamaanka iyo sineedkii iyo koongareska cadaaladdii iyo fulintii markii constitutionkaa la sameynayay oo bani aadam sameeyey isku tageen ayaa waxaa ugu horeeyey ka hor yimi waxaa ka mid ah stateka waaweyn iyo kuwa yaryari isku mid baynu nahay state baynu nahay tiro isleeg iyo tiro isleeg aanu qaadano waxaa loo saaray guddigii waxay la yimaadeen ra'yi laba siyaabood bay u eegeen kow equal representation so kontonkii state walba laba oday in laga soo saaro laba qof 100 waxaa kaloo u eegeen population representation oo ku xidhan stateka populationkiisa tiro go'an taana waxay ku xadideen 435 halkaasi waa 535 iyo saddex la siiyey Washington DC waa 538 intaa markii la siiyey ayaa 538 kaasi waa tiradii la doortay oo dadkii ay doorteen stateska oo ah House of Representatives iyo Senate marka doorasho la sameeyo oo la sameynayo guddiga fulintii madaxweyne ku-xigeenkii si uu dawlad u dhiso waa inuu helo popular vote codkii dadweynaha waa inuu ku guuleystaa oo dadkii shacabkii inay toos u dooranayaan iyagaana awoodda leh waayahay afar boqol shan boqol iyo 830kiina 270 ka mida oo codkoogii waa inuu helaa 270 in ka badan sidaasuu ku noqon karaa madaxweyne dabeetana inuu soo dhiso guddigii fulintii dabeetana ay jirto cadaaladii markaa oo hirgelinaysa ilaalinaysa constitutionka sidaa ayaa markaa doorashooyinkii ay mar walba waqti ay ku lahaayeen marka dastuurka caynkaa loo dhisay oo sidaa u qurux badan oo hadda muddo badan soo shaqeeyey oo bani aadam sameeyey ma yahay mid lagaga dayan karo mise waa mid diintii baalmarsan kow waxa sameeyey bani aadam ma waafaqsana diintii islaamka laakiin waa arrin la yimid ijtihaad iyo dadaal badan soo haddii aynu doonayno inuu arrimaha aynu qaar ka qaadan ama kuwa aynu doonayno ama kuwa diinteenna waafaqsan waa inaynu diintii waafajinaa sidee baynu u waafajinnaa marka innaga oo samayna meelaha aynu doonayno inaynu shuura samayno dabeetana shuuradaas intay eegto markay hadday ansixiyaan oo yidhaahdaan waa sax wuu waafaqsan yahay diinta inaynu qaadno inaynu dabaqno innagu waxaad mooddaa inayn islaamkii burburay oo aanu islaamkii lahayn yani maamul sare oo go'aamiyey arrinkii laakiin innaga halkaa waxaa inoogu jira culimmadii marka micnihii dastuur islaamku ma samaysan karaa haa
wuu samaysan karaa dastuurka uu samaysanaya waa inuu yahay mid waafaqsan diintii islaamka waa in culimo qortaa waa in culimo eegtaa waa in culimo ansixisaa ay tidhaahdaa dastuurkana waa kaa marka waan badiyaad moodaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo ururiyo bal hadda tilmaamihii kale khadar iyo inay ku daraano marka halkaa ka sii wadaan waxaan ku bilaaban lahaa habeenkii June 26keedii 1960kii markii ugu horeysay Soomaaliya ay gumaysta ka xorowday ergeysa calanka laga taagayay waxa meesha isugu yimid wax qaradkii Soomaaliyeed intii suurtagalka ahayd iyo qaybihii kala duwanaa bulshada dadkii habeenka meesha joogay waxa kamid ah suugaanyahanadii Soomaaliyeed oo nin kastaaba mikrofoonka qabsaday haday tahay Tima Cadde Guhaad Cabdi Gahayr Cabdi Iidaan nima meel buu tabanayo ka hadlay habeenka dadkii meesha ka hadlay waxa kamid ahaa ninkii la oran jiray Qaasim waxa kamid ahaa inuu yiri Allah yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya Allah yaa dabaaldegiya farax kala dul eedaama Allah yaa dadkaagii yiraahdo dawladnimo qaaday halka dadka gabayga yaqaan iyo dadka taariikhda cusub ee Soomaalida yaqaan waxay leeyihiin xorriyadii laga xoroobay gumaystaha iyo halgankii Soomaaliyeed wuxuu dhamaystir u ahaa halgankii daraawiisheed ninkaas marka habeenkii qof kasta wax tabanayay markuu arka calanka la saarayo isagu darwiishkii buu xasuus darwiishku sheegay waa Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan marka wuxuu leeyahay wuxuu ninkan u dagaalamayay waa la helay ninkii qabriga ugu taga oo u sheega halka la marayo daraawiisha marka uu sheegayo marka Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan laga yimaado gacanta labaad ee sayidku waxa uu ahaa ninkii la oran jiray Ismaaciil Mire laba siyoodba gacanta midig buu ugu ahaayo xagga gabaygana uu ugu ahaa gabayahay de suugaanyaankii Soomaaliyeed ugu cuslaabo kamid ah Ismaaciil Mire oo de silsiladii guba ku jiray dhinac kalena markay noqoto dagaalkii gumaystaha iyo daraawiisheed hormoodkeeda uu kamid ahaa qoraaga buugu marka waxa weeye waa Axmed Jaamac Ismaaciil Mire marka Ismaaciil Mire marka awoormo u ah marka horta waa nin nagu xiraaya taariikh aanu leenahay taas waa mid موضوعا marka uu doortay ku saabsan distoorka waxaan u maleynayaa boqolkii sano u dambeeyayba wuxuu ahaa dood ka taagan dunida muslimka waxaana keenayay markii khilaafadii islaamku dhacday dawladihii ka hana qaaday dunida muslimka oo ilaa hadda ka jira waxay ahaayeen nidaam la yimid gumaystihii nidaamka marka dawladnimo gumaystaha la yimidna qolof ma ahayne ruuxdiisina uu watay marka ruuxdan ka hadlaynaana waxa weeye waa ruuxda dawladnimada dastuurka weeye constitutionka weeye dasaatiirta marka loo qorayana dadka qoraya iyo cid loo qorayaba saddex waxba saameeya waxa saameeya aqoonta dadkaasi ay leeyihiin way saameeysaa dhaqanka dadkaasi ay leeyihiinna wuu saameeya xadaarada iyo taariikhda ay leeyihiinna way saameeysaa saddexda arimood marka dadka inoo keenay ku kala duwanay waxa dooday asal ahaan dhaliyaba ma qaadan karnaa dastuurkan shariicada muwaafaqsan yahay waxa keenay ninka la yimid يعني مسلمين تاريخ أصل هذا الدستور كنا جوجو هرني مدينة حياة وحيل الله قرية وحا كما هذا لنا ماشو كصاب بالله لكن حن كهذا ليا دستور كمان الدنيا المسلمة كتيرة مسلمين تمركز الدنيا واقع كنا ولا صدق قيود بأكل بحين قال واحد من سنة يعني أراها الصومالية ترى هذا قرية قيس ولا إسلا تورا أنا جاي جميستي ودت كي جلاي أو يكلا قبي ودميتان كي خلافة هذا قيب كأها وحو كاني إسقى من مرهبه waxaan kaga kaaftoomo shariicada islaamka ana waan haystaa taas qolo ay yahay qolada waxa ka soo horjeeday qoliyaha uu ku dhacay waxa hadii carabta u yaqaanaan ghazwul fikriga afka Soomaaliga waxaan u yaqaanaa anigu maandufaan baan u yaqaanaa maandufaan maanka hada taqaanaan naadigeenana maan koris balad maanku waa fikirka sidiisaba maanka dad maqasho waa fikir weey maama Soomaaliyeed waxa tiraahdaa maan rag waa mudacaya afkood mudaca waa taqaanaa bahal sida erbado kala هذا ترى isku beego boqol jeer baas dhaafinaysa hal mar baa ku guuleysato waxay ka wada marka fikradaha dadka baa tirada mideen ma mideen kartid marka waxay yiraahdeen waa mudac maan rag waa mudacaya afkood
waxay uga jeedaan afkaarta dadku wax la midayn kara maaha markaan leenahay maan dhufaan maanka waxaan uga jeednaa fikirka dhufaanka waa taqaanooda awrta iyo wanka xiniyaha laga saara marka fikirkii qofnimo laga siibay qazul fikirkaas ku dhacay aragti waxay aaminsanayaan marka waxay wax kasto ka yimaadaan ninka galbeedku waa fiican yahay waa udgoon yahay isaga naga aqli badan isaga naga fikir fiican iyagu marka duuduubahan bay ku qaadanayeen oo tayaaraadkan badana waxa way secularism iyo almaaniyada oo janjeera ba hormood ka ahaa qaybta saddexaad waxay ahaayeen qayb aaminsan fikirku waa hanti bini aadam waa la kala dhaxla muslimku waxa weeye cidaan muslima wax ka qaadan kara dadkan muslimiinta ahayn muslimiinta wax ka qaadan kara hadda ardar reer galbeedku laftigoodu muslimiinta wax badan ka dhaxle marka waxa ka soo noqda aan eegno maxay naga anfacay maxay naga anfacayn waxa jira xadiis nabigu uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman xadiiskaas waxa laga yaabaa inaad u aragto inuu ka fog yahay marka laga hadlayo dasaatiirta maya mabda'an walaalka u hiili haduu qaldan yahay laga qaldan yahayba islaamku nabi maxamed oo iman buu jiray marka nabi maxamed waxa way aragtida noocaasa intii saxdeedii buu ku daayay intii qaldaneedna wuu saxa disorka ninka reer galbeedka ay iga yimid wixii wanaagsan halkiisan ku daynaya wixii qaldana waan sixi karaa doodaas waxaad moodaa dunida muslimka ka soo gudbeen oo waxay kaga soo gudbeen aragti waa marka koobaad ee distorka inaan loo baahnayn waxa filayaa malaha kaydna sabqul lisaan bay ka ahayd looma baahna distorku inuu shariicada waafaqo looma baahna kaleeto waxa loo baahan yahay inaanu khilaafin wala lama mas'alo kala duwan weey yani distorkeena tusaalahaan kala Soomaaliya waxa ku yaala muqdisho ay tahay caasimada Soomaaliya Soomaa caasimada nas ay waafaqsan daliilu kan ma jirto nas ay waafaqsan ma jirto laakiin ma khilaafsan tahay kitaabka Quraanka muhiimad marka waxa weey dasaatiirta waxa la qorayaa xeerarkaasi waa inaanay khilaafin diinta islaamka taasi kaga gudbeen iyo asal ahaan hadda sida dasaatiirta ku badan in lagu qeexo in siyaadada iyo gacan sareynta ay shariicada islaamka leedahay dunida marka waxa taas way ka gudbeen oo waxay la kacaakufayaan hadda waxa weeye waxaan lagu heshiiyay sidii loogu dhaqmi lahaa laakiin inaga waxaad moodaa hadda barbilow inoo tahayba mana rabo inaan ku dheeraado ee Soomaaliduna waxay leeyihiin taariikh madow marka laga hadlaayo constitutionka taariikh madow markii ugu horeeyay ee distor la qoray afti loo qaaday waxa ay 1961kii Soomaaliduna taariikhda ku fiicnayn waxaad la yaabaysaa durba waxa qaldamay waqtigii la qaaday aftida marka ma archive-kayga dib u fiiriyay buug la radraaca taariikhda Soomaaliyeed oo qoray ambassador Awil waa danjirayaasha Soomaalida ugu muddada dheer aan u maleynaya wuxuu qorayaa in aftida la qaaday September halka waxa jira lifaaq ay qoreen baarlamaanka Soomaaliya oo waxa lagu ururiyay 1959kii ilaa 1912kii waxa la yiraahdo doorashooyin Soomaaliya ka dhacay nooc ay doonaan ha noqdaan oo taa distorka aftida la qaadina ay ka mid tahay iyaguna waxay qorayaan in June la qaaday aftida marka ma garan karo kale deedinka dib u hubin doona marka markii ugu horreysay la qaaday waxay ahayd 2000 iyo waxa leeyahay 1961kii waana markii qoliyaha reer waqooyigu ay diideen Soomaaliland waa ka codeeyeen distorka waxa ku qoran kale dib waqti hadda anigu aan 180 ba ka soo horjeestay waana meesha hadda wax ka qalloocdeen oo de inqilaabkii ka dambeeyay iyo dagaaladii iyo hadda meesha aynu taaganahay waxa keenay way waxa laga gudbay loo socon ma loo joojin maayo markii dadna dawladda kacaanku ay 1969kii distorka waa la laalay waxa waddanka lagu soo rogay xukun military dadna 10 sano oo bila distor ah 1969kii ilaa iyo 79kii waddanku distor ma lahayn 79kii bay hadana dawladda kacaanku waxay qortay distor cusub naam isagana iyadoo wali afti loo qaadin ba dawladda ay dhacday 10 sano hadana waxa la galay wax waddanka sharci aanu jirin 1990kii ilaa ya arta markii la yimid marka hadana waxa la qortay waxa wixii loo yaqaanay al-mithaq marka isagana laguma dhaqmino laba shay ugu muhiimsanaa saddex shay baa ugu muhiimsanaa oo waxaan 4.5 loo yaqaano iyo wax loo yaqaano regional autonomy federal mucadeyn ahayn in maamul kasta loo sameeyo maamul gobol kasta ay raado gobol kasta hal maamul loo sameeyo isagana laguma dhaqmin iyo qodobka saddexaad oo ahaa xildhibaannimada iyo wasiirnimada inaan israaci karin inta mid laguma dhaqmin qashanka lagu daray marka arta laga dhaqaaqay wuxuu qashanka lagu riday imbigati baa la tagay miisaaq baa la soo sameeyay laakiin gudi waxa lagu soo sameeyay la oran jiray
magac bay lahaayeen oo 625 ah dastuurka inay qoraan dastuur bay qoreen 2016 bay dhameeyeen afti baa loo qaaday waxa la hala dhameystiro waxa ugu muhiimsan la dhameystiro waxay ahayd qodobada kala xadeynaya dawladda federaalka ah iyo dawladda wadanka maxaa maamul goboleedka iyagana ilaa hadda waa dooda taagan oo ilaa hadda maantadaas xalana loo dhex fadhiyo way marka Soomaalidu xagga taariikh ahaan ceeb badan bay ku leeyihiin dastuurka marka guud ahaan kulli waxaan rajeynaa waxaan Abdullaahi wax fi xiriirinta waa laga fiican yahay mikrofoonka kugu soo celinaya insha Allah culimada ku soo dhaweey من كرسنا حرام مركلين أنو مهندقو سيدا فعنا يسوق كان كنتو إنه سيسو تشانيس إنه بو كل نقاش نكو غرفينو سيدا بو جنين عاوا إن آخرين إني غرفينين في تيمن كسابسن دستوركا يشرع هذا دكتور أحمد جامع إسماعيل ميرا تاريخ يسوق كريوي بو جينو كدرا في عناد سيلو قادو سفيع سفيعا حتى بوجا جامع إسماعيل بوجا جوتي مراهي إنه راعيه هاد سيلا قرتو إن رنتي لبا سيا لبا ضوء بنو فرح سنة بوجا إن آخرين تيسا ومرة إن علماء ذينا وإذا ذينا محاضرين بدون بنو كذا حلي وعتلدون كدوان لكن أفكار تودا iyo fikradahooda oo qoraal ah oo laga dhaxlay ma jirto iminka waa laga yaabaa inuu ka duwan yahay caalamkii iska social media iyo waxyaalahaas qabsaday laakiin se waagii hore qoraalka iyo kutubta iyo nacfigu ugu badan ku jira welina waa wax ugu muhiimsan ee laga dhaxli karo waa wax qoraal ah oo wixii qumanba qoraal leh talabaadna waa in maaragtay uu inoo dhigay buug ka hadlaya mawduuc muhiim ah badana wadaadadu wax iska soo jiri jireen uun dastuur haddii la soo qaado waa gaalnimo marka bal in laga badoodi karayo oo dhigaal ahaan loo dhigay iyaduna waa horumar hor leh oo aynu gaarnay aniga waxa ila xiiso badnaa laba cutub buuga intaan akhrinayay mid waa cutubka saddexaad oo uu kaga hadlayay dimuqraadiyadda aragtida islaamka ee heshiiska bulshada social contract iyo xukunka dimuqraadiyadda iyo howlahaas ka labaadna waa isla cutubka ku xiga cutubka afraad oo uu kaga hadlayay mabaadi'da dastuurka iyo shareecadu waxay ka qabto waxaan saa u leeyahay بدنا إنه وتر مركز روح سومالك مركو مغلط دستور وحسك صوت شري ون محن دستور كفلنا شر كتابي حديث كي إنه يالله مركز إن لدهان بالنقاشنا ودق حساسيتنا من كقبنا الديمقراطية هذا المغلنا يدا لفتك يدا ولقبوا ذا لكن تعتم به كتابك سفي عمبو دكتور أحمد رنتي وقال الله إن أن لقدمين كلمة دستور مركل مغلو وإحنا كل لعبة سيرة فضوا حد يومارك تشرحات وامح الدستور وامح الشريعة أنا واحد من تاجنا بحاول كل سارس الدستور كي شريعة وإسلاميت كيونه يا من تاجنا بقى مركتات رسفي عمبو شرحي tan dimuqraadiyadana xoogaa waxaan isleeyahay wili waxay naga yarahay faham xumo ay naga hay wax dimuqraadiyadu tahay waxaan u maleynayaa ma ogi daktarku de inuu galbeedka ku noolaaday in kale laakiin qolyaheena galbeedka ku noolaaday waynu u yara jilcin karnaa dadka wax dimuqraadiyadu tahay dimuqraadiyada laba qaab loo eegi karaa mid waa in la dhaho waa hab nololeed isla sidaan inagu dhahno al-islaam xayaa وهم نولد هذه لده وحكي كده هاي وانا ضد شرطة إذا كقار كدودان أو إن ويا هاي ديمقراطية دينها هاي وح كان جوني قاب كدو نولاني سيدودان لكن كان لقي كراوة هاي لده ما هي ديمقراطية وبروسس وحكم أو ده إن أندورتو روحي حكومي لها مثلا بالمثل تصالحان
badana waxaynu odhanaynaa shacabku wax ma xukumaa waayo waxa lagu eedayaa dadka diidan dimuqraadiyadda waxay odhanayaan shacabku isagu wax ma xukumi karayo laakiin hadda markaan fiirino inagu wax maynu xukunaa waxaynu dooranaa dad wakiil ah dadkaasaa dejiya sharciga right laakiin inagu si toosa runtii dee haddaynu ka biyadiidno qaabkay wax u waxeeyeen ayaynu marka doorashada dambe odhanaynaa waarna dhaaf meel kale nala aadeeye waa process marka dimuqraadiyaddii ma ahan laftigeedu habnololeed runtii markaasaa uga fikirtiin waxyaalaha kale kamida waxaa kamida badanaa aynu caalamka islaamka dimuqraadiyadda markay maqlaan oga didaan waxaa kamida tusaalayaasha ay dadku isticmaalayaan matalan dee sotan ogolaanayso ninku inuu noqdo naag ama inuu ruuxu noqdo taasi waa moral waa morality weeye dad badan baana ku dooda matalan maqaalo badan waxaa jira uu qoolay David Brooks ood wada garanaysan badankii inuu odhanayo waa social trust ma ahan social contract kaliya oo haddii aynu qayasoorka aad aaminsan tahay ee ka hor timaado waxay ka dhigan tahay heshiiskii bulshada ka dhaxeeyey in laga hor yimid marka dimuqraadiyaddu waxa weeyaan uu nidaam lagu dabaqayo waxa ay bulsho ku heshiiso haddii bulshada marka ku heshiiso nin ma noqon karo naag dee wixii ka hor yimaada sharcigii buu jebiyey laakiin haddii bulshadu ku heshiiso nin baa noqon kara naag dee kama dhigna nidaamkii dimuqraadiyadda saamaxaya waxay ka dhigan tahay bulshadii baa markeedii horeba qaayasoor khaldan isticmaalaysay oo iyagaa wax khaldan markoodii hore ku heshiinayay saxda iyo khaladkuna uma malaynayo marka ta laga yaabo inay uu Dr. Axmed runtii ku dooday oo laga yaabo macnaheedu sameeyay waxa weeye ma jira wax handaab ah oo xadidi karaya xorriyadda qofka waana farqiga u dhaxeeya marka islaamka iyo nidaamyadan islaamka ahayn laakiin run ma aha in ruux kasta oo shakhsi ahi waxa uu rabo intuu iska sameeyo ee dimuqraadiyadda u ogolaanayso oo de meelo badan hadda wadamadeena gobolladeena kamida bilmatalan intaad mariya dhigatid ma odhan kartid xor baan ahay inaan qaawani ku socdo Lake Street sharci baa jira ka degan inaadan xidhan karaynin laakiin waa laga yaabaa inay jiraan xeebooyin loo ogol yahay inay sidaa ka sameeyaan oo loo xadiday wadamada right marka waxay ku xidhan tahay weli waa heshiis ay dadku wada gaareen uun haddii heshiiskaasi markuu waafaqsan yahay shareecada islaamka iyo inuu diidan yahay unbay su-aashu noqonaysaa ee kama dhigna laakiinse nidaamkii iyo processkii ayaa khaldan marka xorriyaddu dabar ma lahaan kartaa iyo ma lahaan karto yaa ka muhiimsan nidaamkan ma la isticmaali karaa ma la isticmaali karo taasaad moodaa inay farqi samaynayso oo ma waxaa jirtaa qaayasoor guud oo in wadaagno shared morality mise waa shakhsiyan uun ruuxu waxa uu sameynayo ayaa shaqeynaya inkastoo aan jeclayn Ian Lewis waa kii qori jiray wixii bugil odhan jiray pastoral democracy oo uu kaga hadlayay dimuqraadiyadda ka jirtay xoolo raacatada Soomaalida uu ku dooday waxba ku dhaqmaan nidaam saas oo kale marka page 118 boga 118 cutubka saddexaad uu aad kaga hadlayay xoogaa wuu yar taabtay laakiin waxaad moodaa inuu ku soo biyo shubayay dimuqraadiyaddu inay tahay ama wuxuu ka hadlay labada mowduucba runtii oo dimuqraadiyaddu waa gaalnimo iyo maya ee waa nidaam laakiin dhanbaad mooday inuu yar janjeeray inkastoo uu is yar ilaalinayay Dr. Axmed marka xoogaa si guud waxaan uga dan leeyahay waxaad moodaa si guud haddaynu nahay Soomaali ama ruuxa Soomaaligu xasaasiyadda uu ka qabo dimuqraadiyaddu wili inay ku yara salaysan tahay xoogaa fahan ballaaran oo inaan ka haysanin waxa ay iyadu ay tahay laakiin haddaynu fahmi lahayn macnaheeda rasmiga ah iyo inay tahay dee miyaan doortaa ruuxa i xukumaya mise waxaan sugaa ruux intuu i qabsado wixii uu doono iga falo hadda bilmatal inaga Mareykan baan ku noolnahay xilligan hadda la joogo waxayna haysto ruux xaalkiisa Ilaahay og yahay laakiin nidaamku muxuu inoo saamaxayaa 4 sano kadib in aan bedeli karayo oo ruux kale
aan ku bedelan karo aan dooran karo right waa process runtii aad moodeed inay tahay tijaabo guulaysatay oo dadkii sidii ay heshiiskii ay ku heshiiyeen ay u dhaqangelin lahaayeen u saamaxaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا مضشة يا علماء بقى يا دكتور هذا waxaan doonayaa dhowr qodob oo horta buugga wali ma dhammaynin waxaan maleeyaa laba page 190 ban hadda socdaa marka waan xoogaa daacadnimada la yara sheegay soo fiicantay soo intii aan ka bowsaday bal dhowr qodob baan qoray buugga markaan doonayay xoogaa inaan soo yara koobo horta doctor Ahmed jaamac Ismaaciil mira magaciisa muu sheegay inuu qariyay la sheegay laakiin waan tuhmay aniga qudheeda markaan arkay magaciisa oo socda waxaan aad ugu amaanayaa qoraaga iyo doctorkaba inuu fudeydiyay aqoon in badan cid gaar ah u xidhnaan jirtay oo dadkeenu inta badan bari baan waxaan garanayaa doctor Mustafa Sheekh Mustafa Ilaahay khayr asiya ayaa wuxuu muxaadaro buu jeediyay ajalad baan ka dhageystay markaan anigu wuxuu oran jiray aslimatul ma'rifa aqoonta waa in la islaameeya marka anigu waxaan halkaas ku darsanayaa waxa leeyahay waa soomalatul ma'rifa aqoontan taalayn laaf Soomaaliyeeyo iyada qudheeda ama diin ha noqoto ama adduunyo ha noqoto waa mid loo baahan yahay qodobka labaad doctorka khayr Allah siiya wuxuu gudagalay mowduuc aad u ballaaran qofka eega waaqica Soomaalida si guud soddonkii sano u dambeeyay ilaa dhowr soddonkii sano u dambeeyay wuxuu arkayaa mowduucan ah xukunka iyo dastuurka iyo inuu dhiig badan ku daatay dad badan baa u qoolan dad baa lagu dilay maxaa dawladda u gashay dad baa lagu dilay maxaa dastuur u ansixisay dad baa lagu dilay maxaa baarlamaan uga mid noqotay marka laakiin waxaan isleeyahay doctorku marka dhinaca kale laga eego waqti kooban buu ku qoray mowduuca inta le oo waqtigiisa iyo maaragtay u baahan maaragtay in aad loo balbalaariyo waxa kale uu sheegay doctorku inuu qoray duruuf gaar ah oo xilli maamul la dhisayay buugga qoray taasi labada midna way habboon tahay marna waa hagrasho mar way habboon tahay oo waqtiga ugu fiican la isweydiin karaa dastuur muxuu yahay shariicada maxay ka qabtaa xilliga wax la dhisayo haddana in la yiraahdo muddo dhowr bilooda lagu soo koobaya gebigeedaba oo si guud inaga dhaqani noo ah aniga waxay leeyahay noqotay arrinaan baxalay aan malaha aad gunta loogu dhaadhicin qodobka kale ku daraya waxa weeyaan doctorku khayr Allah siiyo lamu dhuuman wuxuu aaminsan yahay marka ijtihaadkiisa iyo fahankiisa markasta uu qeexay waxaad yara moodaa in xoogaa markuu ka sheekeynaya dimuqraadiyadda liberaaliyadda xorriyadaha inuu aad ugu yara dheeraaday inuu idhaahdo xaggooda xunun wax inaga tuso oo aanu dadna dhinacan kalena aan odhan iyagu maxay kale ku fiican yihiin talo taa waxaan ka wadaa waxaan maalin dhaweed akhriyay buug qoray doctorka Cabdulla Nafiisi oo ka sheekeynaya Kuwait iyo hawlaheeda iyo dimuqraadiyadeeda waxyaabo ku daray wuxuu Belgium ba mar isla soo qaado tiri talow dimuqraadiyadda ma naanfacaysa mar kasta niman aynaan dooran u bayna maamula dad lacag la meesha qabsada inaga ma naanfacaysa marka iyaga qudhoodu in cadaalad loo sameeyo leeyahay marka qaar kood bay isweydiinayaan waxaan kaloon ku dari lahaa mowduuc jira oo leeyahay dastuurku mar kasta dastuurada muslimiinta ee qoran shariicadu waa ku qoran tahay laakiin si symbolic ugu qoran tahay waxa laga yaabaa in lagu qoro dastuurkani wax kasta ka hor imanaya shariicada islaamka waa ka soo horjeeda laakiin maxkamadda penal court kiba yaala Soomaalida maamulada u badan yihiin aragteen mooyaan meel kasta Sheekh Aadan Siir khayr Allah siiya bari uu ka hadlayay wuxuu yiri waqtiyadii qaxoontiga laga yimaado waxa la qoray xeerka ciqaabta islaamka bug baa la daabacay buu ilaa cirgaabay ilaa halkii dib loogama soo qaadin waqti badanna uu ku baxay marka aragtida theory-ga markay tahay iyo markay practicality-ga tahay aad bay u kala fog yihiin waaqica muslimiinta yeenta anigu intaasaan ku soo koobay insha Allah buugga wali waan wadaa waxaan u maleeyahay waxyaabo badan oo kale uga sii dhaadhici doono laakiin khayr Allah siiyo doctorka iyo maaragtay intii noo soo koobtayba meel fiican buu dhigay insha Allah إلهي سبحانه وتعالى أولا بشر رمضان فضل إلهي أنه عافمات قمنا نقارسي ساسو كلا إلهي سبحانه وتعالى لبعد تذن هيسته ودن كان وهيسته إذا نفس الكلام إلهي ملها إنك مريم إلهي مؤسسات كين عن لنا هاي الله أنه بركة ساسو كلا ومدى الصوماليات أسمحهم بيكجران إلهي سبحانه وتعالى إلهي أزمدها كقاضي إلهي قلوب توسع سكان وحوانا أكسن الله وافجي إخوتي في الله يعني كتاب كوان أخري وحان لا أخري كتاب وقري نيكي محمد مختار شنقيطي وأبحي أزمة الحضارة الإسلامية الأزمة الدستورية في حضارة الإسلامية كنت وكتاب عجيب له يعني أنا والتص دكتور قدر أربابي وأنا ودد كان الصوماليات ووحي أمداس مسلمين كل عيون كل عي أولا تاريخ الأديان
qofka inuu ogaado horta kuwa aad wax ka soo qaadanaysid diin kasta say u bilaabatay iyo say ahayd masalan nabi calayhi salaatu wasalaam jaziira carabiya laga soo dhex bixiyey waxaa ka horeeyey waxaa laba boqortooyooyin oo adag ayaa dhinacyada ka taagnaa byzantiya oo romania haddaad fiirisid nabiyullaahi ciisa masalan asaga markii la soo diray meesha waxaa joogtay dowlad oo wax sharci la yidhaahdo lama imaanba waa faraaq waa dowlad baa dhisanba iyo nimanka yahuudda oo iyagana si kala ahaa marka asaga wuxuu la yimid raqaa'iq mawaacid jabal oo kale nabiyullaahi muusa asaga nin siyaasi weyn buu ahaa cadaaladna loo yimid laakiin haddaad fiirisid labadaba darfi bay ahaayeen wax dhammaanayay ahaayeen ma ahayn wax sii soconaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa og meeshuu risaaladiisi u geynayo sida aayaddu subxaana wa tacaala ilaahay ku sheegay marka nebiga waxaa lala soo saaray dad firaaq dastuuri firaaq siyaasi xadaari ka maqan waa meel maran ayaa dad waxaa loo soo diray oo laba boqortooyo dhib badan dhinacyada ka taagan ayaan la tusi karin waxaa ka mid ah hadalladood min axdi caadin kaana macruufan lana asru lmuluuki qatluha wa qitaaluha waa la dagaalayeen camr ibni kaltuum oo shaacirkooda weyn ahaa waxyaalaha uu ku hadlaya waxaa ka mid ahayd hadduu ogaa ilmahayna kan naaska nuugaayo hadduu weynaado fitaamka haddii uu radiic u gaaro waxaa u sajuudaya jabaabirada markii yani ummad horta wuxuu u imaaday oo aslanba wax la yidhaha sharci iyo qaanuun i kala dambeyn shaquleen waa hadalkii aquuna doctor qadar uu yidhi unsur akaaka daalim meeshay ka jirta marka nebi maxamed 10 sano uu meesha ka gaarsiiyey oo ummaddaas marka ummaddaas intaa soo socotay sidoo ninkii محمد بن عبد الكريم الشيرساني كتاب الملل والنحل هذا اللي يابلو يري وهو يري إذا ما صل سيف في الإسلام على قاعدة الإسلام على قاعدة الدينية ما صل على الإمامة في كل زمان وجد معناها haddaad aad fiirisid wixii lagu socday oo ahayd alkhilaafa nabawiya wa khilaafa raashidiya intii ay nabiga calayhi salaatu wasalaam khulafadii ay joogeen waxay ahayd in ay amiirka la doorto siduu ninkii xakiim alyaman uu yidhi markii jaabir uu yidhi markii nebigu waa dhintay waxaa la doortay abubakar wuxuu yidhi yaa macshar carab idinka intaad nin hadduu halaagmo malagaad ama nin boqor hadduu ama amiir halaagmo aad dooranaysaan mid kale khair kama zuulaysaan waa islaamku wuxuu la yimid wax qaacidadii ahayd haramiyadii fircooniga upside down يعني الشعب كأيا دورانية الشعب كأيا حكومة مركي ربان أيجا ريدي هرم كي وحاب بأي أو أها فرعونية أو معنا سجن وقصري هامان كحيجو قارون كحيجو سحرة كحيجتو أيه وحوا أمدي مركي خاصة فاستقف قومهم كل عضو ابن لجدي مركا إسلام كا حتى جان جاك روسو وأن يعني عقد الاجتماعي كتاب كيس وحو أمانة إسلامك
inta badan oo wax ka dhiga jaamacadahan America oo wali yahuuda waxay ku leeyihiin qaacidada diiniga oo wax lagu aasaaso wax ka wanaagsan ma leh waa kuwa xooga u furan tahay aqligooda iyo maankooda islaamka marka saa daraadeed waa sida aqoona doctor qadar oo sheegay annaga Soomaalihan aslan bal lama tuso wax kala dambeena mana arag run hadaartiin hal tusaalaadin ku dari maadaama aan da'deeda meesha gaartay dawladdii ugu horeysay oo wasaayada ahayd saddex xisbi baa ku tartamay waddanka leegada xisbi digil mirifle oo meesha aan ka imid ah oo qabiil ah digil mirifle waa qabiil ay qabiil caday haayeen iyo saanu oo dadka reer xamarka dadkii leegadii 80 waxbay heleen kuwa kan digil miriflahan waxay heleen 30 iyo hooga nimankan reer xamarka amar banaadiriga ahaan iyagana waxbay heleen barlamaankii markii la isugu yimid Allahu naxariisto kulli wax nool ma leh hadda waa Cabdullaahi Ciise ugu horeeyay asaga la yiri waxaad keenaysaa 6 qof ku kooban dawladdaas ku meel gaarka ah oo 60 gaarsinaysa meeshayba ka bilaabatayba waxaan hadda aad arkaysaano federaalka nimanka reer beedhabada nimanka koonfur galbeedka keenay waxay u keeneen waxay ahayd ayagoo helay 34 kursi ee 32 kursi oo waxa la yiri maya waxa xukumay majority wala idinka badan yahay markaas irsaan ku heshin weyn ilaa hadda way nagu jirtaa iyo tan aqditoor qadar oo sheegay ayadan dastuurkii 61 ay dadkaas Somaliland aynan marka waxa way inta waxay ku tusaysaa annaga social contract waan aada ugu liidana marka ummadan waxaan ku soo koobay oo cad yani waxa inagu socdo wisaayadii ninkii Louis Taase markii Mansuuriya lagu qabtay oo ogaaday in islaamka laga on islaam dambe aan dagaal waxba looga qaadin waxa kamid ahaa inuu yiri إشاعة الفرق بين المسلمين إن لحظة اللي قفها فيه إن سماء إمامبا ساس أو كلا عدم التمكين بلاد الإسلامية والعربية أن تقوم فيها حكم الصالح إيوه إن لفساديو أنظمة جرتها إن لكلا صاروا القمة والقاعدة ملاحظي هي مرب اسمها أيام إن الهلين أيضا دياروا دين تيسيد دلك إنه دفاعه إن صومالي كليات مودي زي إن وحدة إسلامية بدعين حتى الدول العربية نفسه مركا أريماس نقول السعودة إيوه لكن وحا إلهي مهدي ساعة كنتي سو بروفيسور ورفان ويريوي وحيالا الله لا يابسنان جري وحاكم إذا هدي الدستور لما قضى إلى هذا ويقبان إن دستور كبد مودي إنه يهي قال نمو وأنا كنت زمان مركان أركي وذلك هدو كنا نولان لاي ميلها واحد بدن بس كبدل لاي وايو المانية ذا الشيء جاي كنت ذاتك سفي عن أفسري شيخ عبد الرحمن سفي عن ويقانا قاموس كفرنسيس كلاروس وحاول ما هن فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الكنيسة صار يقول فسر أي عن حياة يعني إنه ما هن مملكة حتى حبك سيدة المانية ذا نفس الكلام سيدة اللي فسر ما بقى هم الماني أصلا ليس لنا علم المايا ولا ديني والدنيوي والزمني وحرتكم مقعو مركا ددكي وحي نقدين مركي إن أي مركي مقلان كواس إيو وحاس إيو أرنتا ودكتور قادر وريو قصب ددكي أو لا إيو أو قصب فكر كناي إيو يا أوكي نيبا نيو حاجر عام لا يقانو جورج درابيشي لبناني مسيحي وحالي لبا مشكلة هايستو
وعلماني أولا ومسيحي وهو بحي إسلام مكة إسلام وحاول روحي إسلام مدينة يعني وحالي هي أساس واحد سميه مركز ضد بدن حتى هدات في رسد في الدول العربية كوا علمانيين ذا كانوا يردن وحيقول بديهين ضد أو مارون كريستيانا ضد كل واحد كسر هذا وحكم منير شفيق مفكر وين فلسطيني علماني بوهانجري عبد الرحمن المسيري ورق بدن رق يسطن إلهي بابوي مركز دم الدين ده كسر علي مركز وحاول ردي أنجا وحيلا عن جعل هذا وحاكم إن إنتان أمدينا الصوماليات أن وعي جلين كرنو وعي يعني وعي الحضاري خائب وي انت ان قبان كرنو ان جارسين كرنو ان جارسين اقول قولي هذا وبالله توفيق anigu istaan u fahmay laba qaybood bay iska saaran tahay qayb idaari ama maamul administration ah iyo qayb akhlaaq labadan horta waa isku lamaan yihiin mid kasta oo la arkaana wuxuu hadana xiriir la yeelanayaa waxa loo yaqaan xorriyadda cida doonta inaad doorato xisbiga doonta aad ku biirto oo dhinaca administration-ka ahi waa inaad xorriyad u leedahay oo aan lagu jujuubin dhinaca akhlaaqda qofka inuu yiraahdo waxaan doonaan sameeynaya nin baan aho naag baan isu bedelay dhinaca kale aan sameeynaya dimuqraadiyadda xiriir baa leedahay xorriyadaadana waa inaad ku sameyn karto lagu jujuubi karin labadan markaa way isbarkan yihiin inta badan culimada gudaha joogta waxaad moodaa dhinaca administration-ka idaariga inay iska hilmaamaan oo ay focus ka saaraan jaanibka akhlaaqiga halka inaga dhinacan qolyahan westernka ku noolaad moodo dhinacan kale aynu ku caanamaalay baadoo codin noo ogolaanayso oo aanu siyaasadeena xuquuqdeena dhinacan aanu focus garayna su'aasha markaa ugu muhiimsan waxay tahay runtii aan jecel bal doodeena ka mid noqoto sidee loo heli karaa dimuqraadiyad aan jaanibka akhlaaqiga lahayn sidee loo heli karaa dimuqraadiyad aanay akhlaaq dhaqanka islaamka iyo taqaalidiisa ka baxsani aanay saameynahayn xorriyada ay diintu jaangoynaysa ay saamayso marka waxaan in la kala dheego oo markaa bal nuxura la soo baxo laakiin waxaan iswanay oo nima dhinac ka daawanayo midna natiijo sax ka gaari maysan aniga la tahay alxamdulilah salaatu ala rasuulillah bacd jazaakum allah khayr adbad uma santihiin professorka iyo dakatirada aad baan ugu faraxsanahay sida fiicaneed soo bandhigteen insha allah tacaala anigu waxaan ka eegay lix jaanib oo soo koobi horta marka hore dastuurku waa marxalad basharku u bislaadaan weeyaan ee ma aha wax bini aadanka la dhasha walidaalika reer galbeedku dastuurkoodii ugu horreeyey magna ingiriiska 1270 bahayd faransiiskuna 1770 annaka maraykanka 1780 bahayd maraykankana dadku markaa way u soo bislaanayeen doodaa socotay dhiig baa soo daatay laguma soo gaadhin raaxa laguma soo gaadhin waa loo soo kaadi baa loo soo cabay marka in xayaa dastuuriya la samaysto waa marxalad weeyaan taas horta waa inaan isla garanno weeyaan midda labaad waxa weeye annagu markaan nahay Soomaali iyo caalamul islaami labay kala tahay waa inaan si u garanno weeyaan anigu waxaan ahay qof aad u akhriya wixii dhashay fikirka islaamiga labadii qarni ugu dambeysay la qoray marka laga soo bilaabo Kawaakibi iyo Jamaal Diin Afghani ilaa maanta uma malaynayo isma faalinayo inuu buug jiro ay qoreen oo ay dhaafay uu yiri yahay maadaama arintu ay sidaa tahay fikirka dastuuriga ah caalamul islaami doodiisu waa la xaliyay Soomaali ma xarsamo waa kala horeynaa taana waa inaan isla garanno caalamul islaami kama jirto dastuur ma samaysanaa mise ma samaysano waa la soo dhaafay waa laga yaabaa soo doctorku sheegay khadar inay socotay afartanooyinkii kotonooyinkii ay jirtay masar doodaasi ay ka jirtay laakiin maanta xataa sacuudiga kama jirto xataa fikirka salafiga dhexdiisa kama jirto ninka la dhahdo doctor xaakim al-matiri oo reer kuweyda kitaab buu qoray dhahdo al-xurriya aw al-tuufaan caalam al-islaami ama xurriyadu qaadani amba uu burburi
waddankiisa laga eriyo turkiga ku yahay qaxooti ninkaasi wuxuu ku qorayaa buuggiisa dastuur la'aan waa dowlad la'aan marka iyadna waa yani waa adduunka islaamku hadday tahay fikirkii culimmada caadiga ah hadday tahay kuwa xarakaadka ah iyo kuwa kaleetaba way soo yaro ururtay inay ku soo ururtaa laga yaabaa dad yar laakiin soomaalida waa mayan taasina waa midda labaad wadaadkaasi miduu sheegay baan sheegaya saddexaad dastuurada adduunka islaamka kuma qorno maado annaka noo qoran maadadaasi waa cajiib maadada waxaa la dhahdaa wax wal oo shareecadda khilaafsan waa mulqan waxay ku qoran tahay dastuurka yaman iyo ka soomaaliya wadannada kale kuma qorno marka annaku xagga islaam u orodka waan ka horeynaaba caalam dadkeenu ma arkaan taas dastuurkeenu uu ka islaamisan yahay dasaatiirta adduunka islaamka yeelo dhan ma la dabaqaad waa wax kaloon ka hadli doonaa ma la baratikaya wax kale laakiin qoritaankiisu waa ka horeeya dasaatiirta kale arrinta afraad 5 kelmadood baa lagu qoraa dasaatiirta caalamka islaamka midda koowaad waxaa lagu qoraa shareecadda islaamku waa masdar ka mida masaadirta loogu laamayo xeerdejinta waa kow taasi waa lagu qoraa ayaga hadda la socaya masdaro kale markaa jira curfigaa jira maxay waa masdar min masaadir tashriic qaanuunkii masaaridda 71dii usaadad qoray iyo ku qornay saas waa la soo tatawuray waxaa lagu qoraa meelaha qaar shareecadda islaamku waa masdar carabiga alma waa masdar رئيسي للتشريع ومصدر وائل halka hore marka hore lagu laamayo sharci dejinta الله سومها midda saddexaad waxa weeyaan shareecadda islaamku waa almasdar alra'iisi alif iyo lam baa lagu daray taafaraad waxaa la yidhi islaamku amba shareecadda islaamku waa almasdar alwaxiid litashriic waddanaa qaatay باكستان baa ka mid ah 5 waxaa la qoraa islaamka iyo fiqiga iyo curfiga iyo qaanuunka dawliga shareecadda aan khilaafsanayn waa masdar loogu laamayo shareecadda saasa qawaaniinta muslimiinta ugu qoran tahay annagana soomaalida saa nagu qoran tahay saddex shay baana inta badan la isku keenaa sheekh ninkana waa ka hadlay ila raad islaamku waa diinta dawladda ama diinta ummadda in shareecadda meesheeda la sheego iyo shareecadda wax khilaafsan la sheegeen way soo ururaysaa wixii shareecadda ka hor imanayay dawladdu macnaheedu doon markaas ka qaadato waxaa jirta jaamacaddan qatar ku taala meelno shir bay qabatay waxaa loo yeedhay rag badan waxaa la isweydiinayay dastuurada adduunka iyo diinta mawduucaas waa muhiim soomaalida muhiim buu yahay adduunka waxa dastuur jiroo dhan iyo diinta la isweydiinayay waxaa la diraaseeyey 193 dowladood dastuurkooda waxaa la ogaaday in ka badan 150 dowladood diinta way ku qoran tahay dastuurka waxa lagu leeyahay waa cilmaani iyo dadka lagu wareeriyaa 150 dowladood ku qoran tahay diraasada kale la soo saaray waxa weeyaan 10 dowladood ee adduunka ugu dulmi badan ugu dictatorsan waa cilmaaniyiin 10 dowladood adduunka ugu dimuqraadisan ee ugu xurriyad wanaagsan waa dowlado ku qoray dastuurkooda diin waxa kamid ah Iceland waxa ku qoran dastuurkeega boqorku waa inuu noqdo wadaad lowthari ah diinta kristanka qayb kamid ah haduuna haysan waa la eriyaa Denmark bay ku qoran tahay waa inuu diinta haysto waliba madhabka uu haysto wadanka waxa ku qoran Norway waliba Norway waxa ka jirta wasaaradda awqaafta wadaadada lacag baa la siiyaa masaajidana lacag la siiyaa ka faa'iideysan masaajid xitaa sabab galan miskiidkani oo maartay Sheekh Ali oo madax ka yahay Dr. Ali Norwich halkaas miskiidkaasi waxa dhisay waa dawladda sidii saa qurux badan dawladda dhistay mishaarkana dawladda bixisa wasaaradda awqaafta jirta marka diintu muhiim bay ka tahay wadannada adduunka ugu dimuqraadsan oo 10 ka adduunka ugu dulmi badanna waa cilmaaniyiin
marka ma fish cilaaqa kama dhaxayso maartay taasina waa muhiim jiddan marka in la laga cabsiyo maaha in diinta lagu qoro dasaatiirteen arinta kale aan jecelahay in waxa kamid ah nin la yiraahdo Nathan Barwan oo Mareykana wuxuu qoray kitaab uu bixiyay dastuurada ka samaysan waraqadaha wax la iska qoran dastuurka annaka waddanka Djibouti markii saddexaad baan bedelay dastuurka waxaan u bedelay madaxweynuhu soo noqdo oo naga tagin isagana bedelinaya sidaas leegaysiinaya imika dooda ugu kulli xamar ka socota waa maxay dastuur booliska la hordhigay albaabka ma la isku qaabayo ay rag xamar imika u yimaadeen halkan loo shiray halkan lagu shiray la isku weydiinayo kursigana uu yahay dastuurkiina waa ku dhex jiraa marka problemkeenu waa dastuur waraqada ah saan doonaan ka dhiganaya saan doonaan macnaysanaya marka ninka buugiisa ina akhrino way fiican tahay Nathan Barwan dhahdo oo dhahdo dasaatiirta ka samaysan kursiga ka samaysan waraqadaha okay dastuur islaamiya kelmadu dastuur islaamiya iyo ku dadaali jiray waa doona qoraan waa la qoray maadka waa la qoray waxa lagu qoray Urdun waxa lagu qoray Suudaan waxa lagu qoray Masar lagu qoray waxa lagu qoray Iran dastuurka xukuumadda imika waa dastuur islaamiya oo Jaafariya oo Shiiciya oo saddex shay isku keenay وانا ايران عبقري نمada ايران ويان dadkeenu ma aragtay isma qiraan runta moogta sunnaha meesha laga badiyay kamid tahay maxay soo keenay ragaasi waxay soo keeneen fikradii uu Khomeini keenay oo shiicada haysatay 100 sano waxay aaminsanayeen han sugna mahdi nin la raado soo bixi doona ninkani Khomeini iyo madrasadiisa waxay keeneen wilaayatul fiqh midna sii gaarsiya si ay wax kala socdaan وعبقري فقهي ودقاجي تجديد بقدر فقهي أرنت لبعض ديمقراطية دي رجال بيت أنت لقاضي يا الإسلامية ولا الجعفرية أرنت صدحات أي سمية وحيان ريفوليشن كوجي فارسي نمدو دي بيكون حضرين قوم النمدو دي بيكون حضرين مركا دستور كساسو يهي وضنا كمركا محاك جرا سدح شيء وياب لك جرا وحاجة جرا دولة لدورتو مدحوينا له oo baarlamaan leh oo dadku ay doortaan u dareeraan oo dimuqraadiyad aan adduunka carabta ka jirin ayaa ka jirta dhinaca kale waxaa ka jira nin sheekha oo intaba ka sarreeyo isagana sheekhaduna ay doortaan oo dawladda dusha sare ka haysta wuxuu u bixiyay wayaan saaxiibka shanqiid wuxuu u bixiyay dimuqraadiyad taxta al-imaama dimuqraadiyad ciidamadu ay hoos fadhida mid saddexaad bay ku dareen waxay ku dareen waxay u bixiyeen guddiga weyn ee ilaaliya dalka siyaanada dastuur guddi la dhahdo oo ilaaliya markaas aniga markaas waxay ila tahay inaan waxaas oo dhan isla akhrino markaa Soomaalida waxay u baahan wacyiga u baahan wacyiga kor loo qaado dimuqraadiyadda haddaan kelmadii ugu dambaysa ka idhaahdo aniga dimuqraadiyadda waxaa jira ilaa iyo dhowr buug oo akhrin karno ninka la yiraahdo Rashid Qanuushi kulli Soomaalida qaar wuxuu yaqaan waa mu'tazili iyo aqlaani oo yaqaanane ninkaasi wuxuu qoray buug u bixiyay الديمقراطية يجرو الآخرين كانوا إسلامك الديمقراطية الحريات العامة في الدولة الإسلامية أبوك في الديمقراطية حلقة قادم كرام حلقة قادم كريم باكو قرآن الشيخ يوسف القرضاوي وحوليه كتابنا هذا إسلام هي الديمقراطية نيكل هذا منير شفيق تجربة الديمقراطية دوكا شاكانها مركز أنا مد بقول لها أنا قلت الديمقراطية ده وحن كده جيستي علماء بدن شيخ كان بيضا مثلا الشيخ مصطفى حاج اسماعيل الشيخ مصطفى حاج اسماعيل بقول الديمقراطية وكسور جدا وحنا يسقوا أمسية إنها تحي وعمل قصة ليسن قيم غربية قيم كغربي هو الليبرالي هو كفري ما قانا كرون هذا الكيس بركة سي علمي ونوش حاجة أوكي أنا وحاني لهذا وحان كلا صارنا الديمقراطية كآليات هي الديمقراطية كأفكار الديمقراطية ده وكتاي كرنا لكن آليات كالديمقراطية ده أنا وحاورك بضاعتنا ردت إلينا وحوله نيو نلوسو عشي سي حولين نلوسو عشي إسلامكو سيدا وشاق شقيدة شيخ خيري
wuxuu sheegaa ilaa soddon qiyam oo siyaasi ah iyo dastuurka islaamka ku salaysan maxaa ugu weyn shuurada ugu weyn shuurada maxaa u asaasi ah inaan madaxeena dooranno madaxeena inaan dooranno un maaha inaan xisaabino iminka wuxuu sheegay doctor cabdirasaaq wuxuu yidhi ninaan jeclayn baa iminka waddanka xukuma laakiin waan sugaynaa afar sano kadib baan ku kacaynaa buuri maya isagoo jooga lagu kici karaa dimuqraadiyaddu waa la xisaabina marka dee meeshan ka mudaharaadeen maalin kasta maalintii 70,000 ay soo baxeen oo dhaxanta dhex joogeen waa muxaasabo ood xisaabinaysaa dimuqraadiyadda caynkaasa dee nebigii ka jirtay saxaabadii bay ka jirtay waxaan aad ula yaabay wax yaroo caadiyo soo qaatay cumar wuxuu yidhi waar meherka waan xadaynaya haddeeto dumarka meherka la sii waa la xadaynayaa gabar saxaabiyada sida ka dhex fadhida yaa ku tiri cumar yaa ku siiyey xaqaas adiga dee muhuurkii baa qaaliyoobay war waxaa shaqa ku melid bay tiri ilaahay baa yidhi haddaad aataytum ixdaahunna qindaaran haddaad kantaal u keentaana yani shaqa ku melid adiga maxaa kugi waxane wallaahi kullu naasi afqahu minka yaa cumar buuri dadkoo dhanba diinta way kaa yaqaanaan cumarow oo iska fadhiistay wax kale ma qabin way saxday waa muxaasaba yani maalinta kale oo muxaasabada waxaa ka mid ah inuu isagoo iska maraya maaragtay meel saa u maraya cumar bin khataab waxaa 10 sano looga dhigay cumrigiisa inuu islaamka macneeyaad mogta islaamkii uu macneeyay cumar isagoo iska maraya meeshii xoolaha lagu ilaalinayay iyuu arkay ari ma lo bahda yaa may geel bahay geel aad u naxnaxsan oo qurux badan geelii kale la joogeenna ka qurux badan beertanna isagaa sameeyey cumar wuxuu u sameeyey muslimiintu markay miyiga ka yimaadiinay geel iibinayaan inay dhowr cisho beeshan daaqiyaan ay u naxnaxaan si ay qiimo u yeeshaan ilaa soo luga safar bay soo galeen maarad xoolaha halkaa bay fadhiyaan cumar u ego ninkii buu yeedhay beerta u dhiibay wuxuu war maxay geelan burburan loo maxay oo naxnaxsan iyo geelan masakiinta khafiifka maxay tahay buu kiri ninkii baa kiri geelan inankaagaa la dee cabdillahi bin cumar baa leh cabdillahi bin cumar baa lahaa cabdillahi bin cumar iyo doona buuri cabdillahi cumar loo doonay kaale cabdillahi geelan maxay yihiin anaa la abo oo maxay tahay waan soo iibsaday dee maxaa ku talgashay waan naaxinaya kadibna waan gadaya waa iib geenayaa wuxuu dhageyso imsaa ku soo iibsataad geelan intaa baan ku soo iibsatahay ninkii baytulmaal ku yeeray intaa u celi intii uu geela ku soo iibsaday geelna kala wareeg geelna baytulmaal baa maxaa yeelay buu wuxuu yidhi raggani geela daaqinaya waxay kugu daaqiyeen meesha barwaaqada inankii amiirulmuminiinka tahay marka hadhow toole waxaa la oran doonaa buu waa inankii amiirulmuminiinka geeliisii si waxaasi u go'aan waa waxaa iminka la dhahdo maarata isku darka conflict maxaa dhahaa yani waa kala ilaalin weeyaan in la kala ilaaliyo adiga waxaad arkaysaa nin dhanoo madaxweyne oo muslim oo gabadhiisa ka dhiganaya shaqaale soo maaha amba sekreteerba ka dhiganaya amba iska wato kale gabdhaha kale la mid tahay soo ma jiraan iyo namada kale la mid tahay maxaa ilmahayga dee waxaasi diinta ka hormaraysaa waxay ku hormaraysaa dimuqraadiyada ka hormaraysaa cadaaladda ka hor imanaysaa markaas waxaasoo dhan insha allahu tacaala wajazaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله سؤال قوا waxay tahay waa ognahay the average age meeshan fadhiyo waa dad soo arkay Soomaaliya Soomaaliya dawladii hore dadka hadda wax bartayna waxba kama yaqaanaan Soomaaliya soddon xoogaa sana laga joogaa Soomaaliya haddan ka imaaday oo inta hadda sheegaysaan forum bay tahay inta hadda ka hadasheen Soomaaliya markaan qiyaasay meeshan ka imaaday oo dastuurkan iyo waxaan iyo wax ku dhaqmo Soomaaliya way yartahay ha oo xalaashi xaraam bay arkaan xaraantii xalaal bay arkaan waana kitaabkay ku dhaaranayaan birina waxay sameynayaan dadkii bay dhacayaan marka maadaama jiilka hadda wax bartay loo baahan yahay inay ogaadaan inta hadda ku hadasheen su'aasheedu waxay tahay hadda dhalinyaradaas wax baratay dhaxalka idinkaa sido dhaxalkii xasiyaal baad ku ligeen because waxaad isku xeelo waxaad isku xireysaan meeshii laga imaaday iyo meesha loo socday dadka fuliyaasha oo Soomaaliya hub hadduu jiro rajo waa dadka dhalinyarada wax bartay oo ku jiro Soomaalinimada oo ku jirtaa laakiin sidayaashii ma taariikhda ma sidaan marka sideed u gudbin doontaan dhaxalkaas sidaan su'aasheedu waa intaas
horta jazaaka allah khayr aad baa mahadsan tahay mid baa ii qornaydoo sheekhuuba sheegay dadku waa saddex jaranjaray maraan doctor cabdirasaaqo jiilu ta'siis iyo jiilu binaa waa generationka labaad oo binaaga ah iyo generationka saddexaad oo ah jiilka abuura madaniyadda iyo xadaarada jiilka ta'siisku waa maxaa dhacdaa waa asaasinta ya maxaa dhacdaa afka Soomaaliga maxaa dhacdaa sheekho afaman asasa bunyaanahu ta'siisku waa asaaska libaax marka jiilkaasi waxaan u malaynayaa markii gobolada la qaadanayay rag baa ahaa saas iyo hablaba maanta bacda hadmu dawla markii dawladdii duntay soomaalinimadii burburtay waxay ila tahay annagu inaan nahay jiilkaas anu saa u macnaya jiilkan waxaan u macnaya inuu yahay jiilu ta'siis jiilka iminka jaamicadaha dhigta ee Soomaaliya dawladda u shaqo taga amba Soomaaliya ha joogaan amba koonfur ha joogaan amba Djibouti ha joogaan amba gobolka ha joogaan shanaad gobolka shanaad waa la diidaayay dawladda maartay maxaa magaca dawladda deegaanka Soomaaliyeed aduu Soomaali galbeed ya amba ogaadeen amba Soomaali galbeed amba ha joogaan maartay LFD jiilka jaamicadaha dhigto oo iminka aad qaar badan isku xidhannahay waxaan ka dareemaa inay leeyihiin dhadhan Soomaalinimo iyo dhadhan waxbarasho iyo inay dad soo socda yihiin oo aad isku xidhanna koox isku xidhan yihiin marka jiilkaasi waa jiilkii dhismaha weeyaan jiilka saddexaad waa jiilka aan hadhow tole ya ilbaxnimada noo dhismay doona aniga markaa waxaan oran lahaa marxaladan maxaan u baahannahay laba shay baan u baahannahay binaa ulwacyi in wacyiga la dhiso iyo binaa shakhsiya in qofnimada la dhiso labadaa shay haddaan ku guulaysano oon dadka wacyigoodana kor u qaadno shakhsiyadoodana aan dhisno islaamiyiinta annaka alxamdulilah anuu weli dadka waxaan islaamiyinimada ku faanaan islaami baan ahay islaamiyiinta mushkiladda na qabsatay Soomaalida waxa weeyaan waxaan dhisnay madharka xijaabkii dumarka aanu xijaabnay garh baan bixinay khamiisaan xidhannay haddaad iminka Soomaaliya tagtid meel kasta oo Soomaalida tagtid oo macdarada tagtid iyaa ka soo jeeda awdaad iskoolada ayaa jooga awdaad iminka maalin dhowto culimo reer Soomaaliland isla hadlayno waxay dhahaan ciidadan ku fashilanay waxaa kamid ah waxbarashadii baa ka tagtay carabi iyo Soomaaliya waxay u wadeegtay English qof af English wax ku bartay maxaa ka dhalanaya ila English afur maayne dhaqan iyo thaqafo wataay okay marka dadkii yaa laakiin iskuulada ayaa ma taqaana wadaadale iskuulkan afka English ka dhigaya laana lacag ba ku jirta mooda wadaadale wuxuu ku leeyahay tacliintii Sorbonne baa afka waxa la dhahaa Sorbonne baa ku xiran tahay Sorbonne ma maxay Oxford baa anaga Sorbonne anaga Faransiiska Djibouti Oxford baa lana dadkii oo markaa soo wada galeen shahaado Oxford waa laga bixinayaa 12aad waxa laga waranaya dadkii oo dhan baa galay meesha laakiin maskaxdii waxay noqonaysaa maskax la sameeyay oo la abuuray marka aniga saabay ila tahay anaa wacyiga iyo shakhsiyadda labadaas aan ku dadaalay insha Allah saasan sheekhow aan talaante waxaan ugu tagay culimada ugu tagay insha Allah jazakumullahu khayran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي ما مهلا أنا هذا كنتي أنت كوسو بير أنت كتاب كان أنت ودعس أفر بوغان أخري ما شاء الله ما شاء الله أولي كوان وايو هذه نفتر كا مانكا كورداي كده هذا كلام مركز هذا رادد يعني سدو أقولها دكتور قدري هو أولا معناها يان لبسنين إن أفرق في نش ور أمد كستا أمد با هرمود النقد دتك هو إن الجرد إن دو جرد إن ما جرد يو حيرا سواء سدح على كبا المجا غير أمسنام بالو كبا بيرد حولها غير إيمان بالو كبا جورجا غيرنا أرضا بالو كبا مركز هذا ردد إلهي سبحانه وتعالى أنت أرين كان سميس إلهي سبحانه وتعالى أجرك الله حسناتك إلهي سبحانه وتعالى أنك ميلا جوجنا إلهي إيمان كاين وقصقو إلهي سبحانه وتعالى المهين الله نور دور ميل كاستا أن جوجنا إلهي نو حفظه ومدين الصوماليات ميل كاستا جوجتو إلهي سبحانه وتعالى الله
إلهي هبركي إلهي هبدبادي أقول قولي هذا وبالله توفيق. waxaan akhrinayaa book lagu magacaabo The Curse of Berlin. Berlin markii Afrika lagu qaybsaday waxaa weli saameyntii ka dhalatay markii post colonization markii colonization baxay waxyaalaha ay dejiyeen waxaa ka mid ah dasaatiirta ama toos u dejiyeen ama saameyn ay ku yeesheen oo si dadban waata dhaktarku ka sheekeeyay in 1961kii xitaa la isku khilaafay Soomaaliya dhexdeeda xitaa la isku khilaafay wadamo badan oo Afrikaan sidaas oo kale ay isku khilaafeen midda uu Dr. Warfaa ka sheekeeyo dimuqraasiyadda maraan akhrinayo dimuqraasiyadda Greek markay Greek dadka dhana waxay gaar ahaan Athenia dawladii lagu magacaabo dadka dhana waxay ahaayeen legislators ayaga dhana coday jiray ayaga dhana go'aanka gaari jiray laakiin midda maanta Mareykanka taagan way ka duwan tahay tii hore tan Mareykanka taagan ani waxa la dhihi karaa is dhihi karaa republic maahan dimuqraasiyad toos ah republic waxa waa representation dadka in la doorto matalaya dadkaas matalaada markaas ay go'aanka gaaraan halka dimuqraasiyadii xagga ay tahay waana la bedeli karaa oo mar walba dimuqraasiyadda sida uu sheegay Dr. Warfaa oo kale waa process sidii loo isticmaalo inay tahay dadkana markii dastuurka oo kale wax laga bedelayo inay dadku codayaan aad baa mahadsantiin dhammaan intaan ka gaarayno xalaqada ku xigto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh